السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan. bacda salaan aad waxaan uga xumahay ciidamada Soomaaliyeed oo lagu leeyay meeshan la lahaa baraf baa la yiraahdaa. ciidamada xawaadle oo u shaqeynaya qaranka qaran ma jiro, qaranka waa aragtaanayda xaalkiisa, laakiin magacuun baa jooge. nimankii u shaqeynayay dowladda Soomaaliyeed, ciidankii u shaqeynayay qaranka, aad baan uga xumahay in qabiil loo dilo. qabiil ahaan in loo dilo waa arrin aad iyo aad u xun. dareen gaara bay leedahay wallahi. marka inamadii difaaciyay habeen iyo maalin ka difaaciyay maxay ahayd khawaarijta oo dagaalka kula jiray habeen iyo maalin maxay ahayd ku dhimanayay oo dhaxanta u fadhiyay inay saa u galeen. waxa weeyaan arrin waxaan loo dulqaadan karin weeyaan. wax loo dulqaadan karo ma aad baan uga xunnahay. marka waxaanu leenahay meeshan dowlad ma jirto la isku haleeyaa. magacuun baa meesha yaallo, magacuuntu yaallo waa alxamdulillah meesha qaramada midoobeyntu yaallo, laakiin waddanka halis buu ku jira. sida ay xaaladdu u socoto haddaydan ninka ka qabanin meesha wax wali way dhacayaan. marka madaxweyne ku sheegaysaan wax ka sugaysaan ninka meydadka ka soo guraya qabuuraha, maana waalan misaacadan baa laga haysiya. maaniga waalan misaacadan baa laga haysiya. wax loo dulqaadan karo ma. marka anigu dadkan aan bala yaabsanahay un madaxweynihii baa caynkan, dowladdii sida tan madaxweynihii caynkan waxay nimaan quus oo naftiisa ba quus. ama dadkiina xagga diga koonfur digow, ama xawaadle noqdo, ama cid kale noqdo, ama haween kale noqdo, ama cid kale meesha la digta noqdo, ninka haddaydan ka qaban waxyaabo ka daran baa dhici doona. inkasta wax noo hadhay ba jirin bedel. khawaarijta waagii soo gashay xamar, berigay xamar soo galeen baan tifeeda ka daawan jirnay iyagoo dadka kasoo guraya qabuuraha. sida aan u arko anigu ummadda tani maaha ummad saxan kulley, waa ummad aan malaynaya ka mid tahay kooxda kuwa ay sayli ku leeyihiin, lug bay ku leeyihiin. ciidamadii nawadinka arkaysta loo leenay waddooyinka lagu gelayo. marka dadkan ilaah bay leeyihiin. waxaan leeyahay sururiya qabiil kastaba meeshiisa ha ku ururo. maxay ahaydee hana la feejignaado. ciidamadu markay fasax u baxayaanna hubkooda iyagoo sita wayna baxaan, waayo naftoodiiba waa halis. khatarteeday leedahay. ciidanku waa inuu koox isku raacaa, koox. iminka wadamo ma jiro weydinka arkayad waxaa 4 gees wax ka dhacaya Soomaaliya. sidaasaa la isu wada gowrac ciidamo noola. ilaahay waxaan ka baryaynaa nasri khayr qaba inuu ummadda Soomaaliyeed u soo rogo. laakiin wayna feejignaastaan, dawada isku haleysaan ma aragtaan meesha ma joogto, aragtaan xaaladdu sida xaalku iyo weydinka arkaya. maxay ahaydee madax banaanidii khatar ku jirta, bes wax kaloo dihadhay ma jiraan. waxa sidan dhaqmaya marka la arko liicliicaya xun oo dhinac loo qaado laqo dadkeedii marisay marka la arko. anigu waxaan ma baqsanahay in magaca la waayo Soomaaliyeedba idina madaxweyne iyo dowladii waxba ka sheekeynaysa. caruurina ursada haysaga diran ciyaalkeena leeyahay. anigu dagaaladaas ummadda Soomaaliyeed ku socdaan ilaahay kala qawajiyo insha Allah bismillaah kariim. dadka way la soo qabtaa, dadka waa inaan sida loo deyn. ama niman noqdeen ama naaga noqdeen, dadka sida uga la ciidanka masaakiinta walgoynaya oo intaas sanado dadkooda ka maqnaa islaha aragteen bal dadkeena soo aragtaan. waa in loo soo qabtaa dadkaas oo qisaastooda la mariya. qisaas waa la qisaasa. dadka waa in la qabtaa ama rag noqdeen ama dumar noqdeen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.